Bhutan, haa, waa waddan. Haddaba, aan maanta wax ka barano waddanka Bhutan. Ku soo dhawaada Baro Caalamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeeni Baro Caalamka ee aad u barateen maalin kasta oo Axad ah. Waxaa maanta miiska inoo saaran oo ay tahay inaan wax ka baranno waddanka yar ee Bhutan ee ka tirsan qaaradda Aasiya. Balse marka hore, sida caadada inoo ahaydba, aan ku bilowno calanka. Calanka waddanka Bhutan wuxuu laba gees ugu qaybsan yahay labada kalar ee jaalaha iyo oranjiga, wuxuuna dhexda ku leeyahay xayawaanka masduulaaga loo yaqaano ama dragon-ka afka qalaad lagu dhaho. Jaalaha wuxuu u taagan yahay dhaqanka iyo awoodda boqorka. Oranjiga wuxuu u taagan yahay diinta Buddhismiga. Masduulaagana sidoo kale waa astaan dhaqan. Dhulka Bhutan waa waddan xiran ama aan xeeb lahayn, kuna yaala qaaradda Aasiya. Wuxuu dalkan dhanka kale uga yaalaa waddanka Hindiya, ama ka hooseeya dhulweynaha Shiinaha. Wuxuu u dhow yahay dalka Nepal oo ka jira dhanka galbeed. Caasimadda waxaa lagu magacaabaa Thimphu. Dalka Bhutan ayaa u qaybsan 20 degmo. Qaab dhismeedka dhulka waddanka Bhutan wuxuu aad u tixgeliyaa qaab dhismeedka dhulka iyo deegaanka, wuxuuna sharci adag ka dejiyay xadgudubka dhirta iyo deegaanka. Bhutan waa dalka ugu cagaarka badan uguna bey'ada fiican adduunka. Bhutan waa waddan buuraley ah, waxaana ku yaala dalka oo dhan buuraha adduunka ugu dheer ee la dhaho Buuraha Himalaya. Dalka Bhutan waa dal laga mamnuucay bacaha, sigaarka, iyo tubaakada si loo ilaaliyo deegaanka. Wuxuu sidoo kale waddanka Bhutan aad u ilaaliyaa xayawaanada duurjoogta ah. Qofkii lagu qabto dilka xayawaankana wuxuu mutaysan karaa xarig xabsi daa'in ah. Waxaa dalka Bhutan ku nool dad dhan 800 oo kun. Qowmiyadda ugu badan dalkan ayaa lagu magacaabaa Ingolob, taasoo boqolkiiba konton ka ah dadka ku nool waddankaas. Waxaa soo raaca qowmiyadda Sharshod, taasoo boqolkiiba 22 ka ah dadka ku nool waddankaas. Inta hartayna waa dadka la yiraahdo Loshamba. Bulshada Bhutan waxay haystaan diinta Buddhismiga loo yaqaano iyo midda Hinduuga. Luqadda dalka ayaa lagu magacaabaa Songa. Kadib ganaax uu soo rogay boqorka dalkan, Bhutan ma aysan isticmaali jirin dhalada ama TV-ga waxa loo yaqaano ilaa laga gaaro sanadkii 1999 iyo internetba ilaa laga gaaro sanadkii 2000. Dalka Bhutan wuxuu markiisii hore ahaan jiray boqortooyo buuxda, laakiin isbeddel dhacay 20 sano ka hor ayaa lagu meelmariyay in 3/2 meel xildhibaanadu ku ridi karaan boqorka dalkan. Saaxiibada ugu dhow ee dalkanu leeyahay waa wadamada Hindiya iyo Bangladesh. Xurguf xuduudeed ayaa kala dhaxaysa dalka Shiinaha, mid siyaasadeedna waxay kala dhaxaysaa waddanka Nepal. Markii ay Bhutan soo musaafirisay ilaa 100,000 oo qof oo Nepal ka soo jeeda, kadib markay u hoggaansami waayeen dhaqanka dalka Bhutan u yaala. Ka mid noqo asxaabta ku xiran Baro Caalamka si aysan macluumada wadamada kugu dhaafin. Subscribe soo dheh channelka Baro Caalamka ee YouTube-ka, followna dheh bogga Baro Caalamka ee Facebook-ga. Macsalaamo. Waxaan marka xigta ka hadli doonaa waddanka Bolivia.